Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuh. Maanta qisadan inoo wadaa waxay dhacday 2009kii waxa ayna ka dhacday wadanka Maqrib ama Morocco. Waxay ka dhacday magaalo yar oo la yiraahdo Bruges. Bruges waa magaalo yar oo dadku yihiin xoolo dhaqato iyo beero falasho. Labada khali ayay dadku ka shaqeeyaan. Dadku waa dad isjecel. Ma ahan tuulo ay ka dhacaan dilal, kufsi iyo falal xunxuni waayo dadku aad ayay isku wada yaqaanaan. Qisaduna waxa ay ku socotaa nin la yiraahdo Cabdiraxmaan ayaa waxa uu dhalay gabadh la yiraahdo Cabiir. Cabiir waa 17 jir. Caruurtiisana waxay ahayd gabadha ugu weyn. Iskuulka waa ka baxday maadaama ay ahayd gabadhii reerka ugu weyneyd si ay aabaheed uga caawiso beero falidda iyo ari raacidda. Laakiin waa ku faraxsanayd. Waxay noqotay inan 17 jir oo aad u qurux badan. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa soo booqatay eedadood. Eedadood waxa la oran jiray caruurta Caayida waa Cabdiraxmaan walaashii. Cabdiraxmaan isaga iyo walaashii mar hore ayaa waxa ka dhex dhacay khilaaf. Aad baynu u nabcayd walaalkeed. Laakiin wax isbedelay garan mayne iyada oo ordaysa ayay u timi. Waxay siday hadiyado. Waxa ay leedahay caruuro badan oo wiilal iyo gabdho iskugu jira. Waxa ayna ka timi tuulo aad uga fog magaalada Bruges. Halkii iyadoo iska fadhida la soo dhaweeyay ayaa walaalkeed waxa uu ka yimi beertii. Laabtuuna galiyay wuuna iska ilaaway wixii hore oo dhan. Caa'ido waxay la joogtay 3 wiig maadaama ay aad u kala fog yihiin. Walaalkeed magaalada yar Bruges uu degan yahay iyo meesha ay ka timi. Aad ayayna u faraxsanayd. Reerkuna sidaas leeg aad ayay ugu faraxsanaayeen. Waa muddadii ugu badnayd ee iyagoo faraxsan ay wada joogaan. Waxa la soo gaaray Caa'ido inay ku noqoto reerkeedii. Waxa ayna tiri walaal waa noqonayaa laakiin waxaan doonayaa inaad Cabiir igu dartid. Cabiir inaad igu dartid si ay u soo barato caruurtayda 2 bilood ama 3 biloodna ila soo joogto. Odaygii waxa uu yiri walaasha oo maanta ku timi idinkoon in badan wada hadlin. Waxa ka haysato waa caadi wuxuuna ku yiri istiyaariyada ayad bariyo la soo joogaysa. Inantii aad bay u faraxday. Waxa ayna aaday tuuladii. Gurigii waa laga soo dhaweeyay. Waxay baratay caruurtii. Caruur lama oran karo qaar waa ka waaweynayeen wiilasha iyo waxay baratay reerkii. Waxay tiri waxa la sameeyay cashooyin aad ayaan ugu farxay. Barashada caruurta eedaday, odaygeeda, dariskeeda dhammaan waa la soo wada dhaweeyay. Maalinkii koowaad, maalinkii labaad, waxay tiri maalinkii saddexaad markii la soo gaaray. Dadkii waxay aadeen iskuuladii caruurtii. Adeerkii guriga deganaa waxa uu aaday shaqadii. Anigii iyo eedaday ayaa isku soo hadhnay. Eedaday waxay ku tiri inantaydii suuqa miyaad wax uga baahan tahay? Waxaan aadayaa suuqa. Waxay tiri waxaan ku leeyahay maya. Waxay tiri aniga kaliya ayaa gurigii la igu sii xiray. Mar qura ayaan maqlay albaabkii oo la furay. Waxa soo galay wiil eedaday dhashay. Aniga waxay tiri wuxuu iga weynaa ilaa 5 sano waa dhowr iyo 20 jir. Waxay tiri wuxuu iga yiri guriga miyaa laga wada maqan yahay? Haa waan ku yiri. Wuxuu yiri kaal qolka waxbaan ka doonayaa walaale. Waxay tiri qolkii baan galay. Qolkii buu soo xidhay. Waxay tiri wuxuu isku dayay inuu kufsado laakiin waxaan isku dayay inaan iska celiyo ilaa ugu dambeyntii siduu ii dilayay aan sooxay uuna kufsaday. Waxay tiri markii aan soo miirsaday wuxuu igu yiri horta anigu waan ku doonayay inaan ku guursado hadeer laakiin ku guursan maayo. Haddii aad dadka u sheegtidna ballan waxaan kuugu qaadayaa in aan sawiradaada dadka wada tuso kuna dilo. Waxay tiri aad ayaan u warwaray. Aad ayaan u ooyay. Cidna uma sheegin. Waxay tiri maalinkii labaad baa la soo gaaray. Eedaday isla sidii ayay u baxday. Tiri eedaday maalin walba markay sii baxayso waxaan ka bari jiray inaan sii raaco. Laakiin way diidi jirtay waxay u oran jirtay maya maya gabadh yar baa tahay dibadda kuma kaxaynayo. Waxay tiri waxaad moodaa in eedaday wiilka la soo ballantay. Wiilkanina uu ilaashanaya markay eedaday guriga ka baxdo. Waxay tiri waxa ka soo wareegtay 2 bilood. Maalin walbana sida ayuu igu samayn jiray. Uuna ii dhaaran jiray.
2 bilood markii ay dhammaatay eedaday waxay ii soo kaxaysay dhanka iyo gurigayagii. Markii aan saa gurigayagii u imi hooyaday ayaan u sheegay. Hooyaday ayaa afkii furatay. Aabbahay buu arrinkii gaadhay. Waxaana lasoo xidhay oo lasoo qabtay Caa'ida oo ahayd isla gabadha eedadeed. Waxay tiri hooyo maalin walba markii ay eedda tagto wiilku waxa ayuu igu samayn jiray. Waxaad moodaa eedda inay la soo ballantay oo wiilkeeda igu soo ballamisay. Waxay tiri waxa dhacday in markii lasoo qabtay wiilkii yidhi gabadhani raalli ayay ka ahayd. Mar hore ayaan aabbaheed weydiisanay anagoo meher u keenay, laakiin aabbaheed waa noo diiday. Sidaa la ajligeed gabadhani dee raalli bayba ka ahayd. Hooyadii wiilkan arrinkan uu leeyahay waa ku waafaqsan tahay. Waxayna tiri waa runtiisoo inankayga waa loo diiday. Odaygii baa loo yimi. Odaygiina wuxuu caddeeyay in aanay weligoodba u iman meher bay keeneen iska daaye. Aanay xitaa inantooda la soo qaadqaadin. Sanado badan iyadoo iskugu dambayso ay maalin dhaweyd islaantana u timi. Arrinkii waxa uu gaadhay in la baaritaan dambe la galo. Wiilkiina waxa uu qirtay arrinkii oo dhan. Wuxuu yidhi hooyaday ayaa waxay igu tiri waxaan kuu keenayaa inanta uu walaalkay dhalay. Waxaanan doonayaa inaan walaalkay ka aargoosto. Inankaygiiow maalin walba markaan baxo inantaa faraxumee. Markuu arrinkii halkaa gaadhay Caa'ida waxaa lagu xukumay 19 bilood maadaama iyadoo ahayd caqligii ka dambeeyay in wiilkani gabadhan kufsado. Wiilkeediina waxaa lagu xukumay 5 sano. Sidaa ayay qisadeenina ku dhammaatay. Qisada faa'iidada iyo nuxurka ku jira waxa weeye cidna ha aaminin. Yacni qofka bini'aadanka gabadhan Cabiir waxaas oo dhan ku samaysay waa aabaheed walaashii. Marka bini'aadanka lama aamino. Waan rajeynaya inaad ka heshay. Channelka subscribe saar, gambaleelka furo, fiidiyowgana like saar. Waad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.